intayna muuqaalka gudagala koobka shaaha soo qaado muuqaalka haddaan like saarina like saar hadda channelka ku cusubtayna subscribe saar dambeelkana furo filimkan wuxuu ku bilaabanaya in lagu magacaabo Gilbert oo maxkamadda loo keenayo si ay u dhageysato waxaanu isticmaalay jeeg bangi sababtaas awgeed waxaa lagu xukumayaa 18 bilood oo xadhig ah Gilbert waxaa la geenayaa xabsiga laakiin 6 bilood kadib ka soo baxsanaya waxaanu u gudbayaa xadka Canada markuu Canada yimid wuxuu raadinayaa shaqooyinka jalaatada laakiinse intaanu shaqada helin ka hor waxaa la weydiinayay inuu sisto kaarka aqoonsiga Gilbert ma haysto wax kaar aqoonsi waanu isaga imaanaya isagoo niyad jabsan wadada intuu socday ayuu arkay nin tuugsanaya Gilbert wuxuu ka iibsanaya kaarka aqoonsiga ee tuugsiga isagoo weliba ka siisanaya $20 hadda wixii ka dambeeyay magaciisu wuxuu noqonayaa Robert wuxuuna aqoonsiga u dhiibayaa iibiyaha jalaatada habeennimadii markii gaadho wuxuu imaanaya meel ay saxan dad ka yimid safarada fufo kadib markuu dhowr jeer qaraaco waxaa furaysaa gabadh lagu magacaabo Andrea Gilbert wuxuu joogay habeenka xaggaas soo xigtay wuxuu bilaabay iibinta jalaatada laakiin nasiib xumadiisa shaqadii uu bilaabay subaxdii si horeysay waxa loo sheegay in kacday shirkadii jalaatadu Gilbert si uu qariyay murugadiisa wuxuu aadayaa baarka waxa iska leh nin burcada oo lagu magacaabo Tommy ninkan ayaa sidoo kale ah nin booliisku baadigooyo inkastoo aanay cadeymo ku helin Gilbert markii uu baarka ka soo baxay ayuu wuxuu si lama filaan ah ugu dhacaya sarkaal boolis ah oo lagu magacaabo John kaasoo xagga u jooga inuu basaaso Tommy markuu Gilbert guriga ku soo laabtay Gilbert wuxuu Andrea weydiinaya taariikh yar wax yar kadib waxa dhex maraya jacayl ka dhex abuurmay dhexdooda waxayna biloobeen inay wada noolaadaan maalin maalmaha ka mid markuu ku soo laabtay xaafadda wuxuu hargeysyada ka akhriyay in dowladda Mareykanku dadaal kastoo suuragal ah ku bixinayso Gilbert wuxuu dareemayaa cabsi waxaanu go'aansanay inuu runta u sheego Andrea sidoo kale waxaan ogaanaynaa inay noqon doonto hooyada ilmaha Gilbert waxay rabtaa inay farxadeeda u sheegto Gilbert inuu noqon doono aabo laakiin taani u sheegin ka hor waxaaba hadlay Gilbert wuxuu sheegay in maalmo yar u baxayo ganacsi Gilbert wax yar kadib wuxuu gaadhayaa Vancouver si aan loo soo qaban mar kale wuxuu bilaabayaa shaqadaas laakiin qof kasta uu tago shaqada oo loo diidayaa dabada sigtiisa ay wadada u arkaya laba nin oo baabuurka ka soo dejinaya lacag cadaan ah oo ay bangiga u sidaan markaas kadib maskaxdiisa waxaa ku soo dhacaysa fikrad inuu dhaco bangiyada isla mar ahaanta wuxuu ogaanayaa Andrea inuu uur leedahay Gilbert ayaa isla markaasba soo gelaya bangiga isagoo dhinac kasta ka indhaynaya kadib intaas wuxuu imaanaya dukaan isagoo iska dhigaya nin jilaa waxaanu soo gatay dhowr dhar ah shaqadiisa u fududaynaysa sidaan loo fahmin waxaa kadib wuxuu soo labisanayaa sidii nin kormeeraya bangiga sidaas ayaanu bangiga ku gelaya xitaa wuxuu la kulmayaa maareeyaha bangiga isagoo iska dhigaya inuu kormeerayo bangiga xitaa wuxuu si dhumashaha ku soo gelaya qolka safka kaamiradaha ee lagala socdo bangiga waxaanu ururinaya dhammaan macluumaadka uu baahan yahay dhanka kale wuxuu sidoo kale bartaa farshaxan bedelada wejiyada isagoo isticmaalaya maqaarka silikoonka ka samaysan Gilbert wuxuu xadaya san silikoon ah ugu dambeyn waxaa la soo gaadhay maalinta uu dhici lahaa bangiga Gilbert isagoo isqarinaya ayuu soo gelaya bangiga si uu dhaco bangigiisii ugu horeeyay waxaanu imaanaya gabadhan waxaanu u dhiibayaa waxaa warqadda ku qoran haqayn markaasna wuxuu tusayaa qori jeebka ugu jira wuxuuna ku amrayaa in ay siiso dhammaan lacagta iyadoo baqaysa ay siinaysaa lacagta laakiin Gilbert ma haysto meel uu ku rito markaa gabadha waxay lacagta ugu ridaysaa shandadeeda waana u dhiibaysaa isla markaas sanka Gilbert ee fake ah ayaa biloobaya inuu ka soo baxo iyaduna way u sheegaysaa waxaanu dib ugu celinaya meeshiisii isla markaas wuxuu biloobay in dharkii meeshuu ka iibsaday dib ugu soo celiyo wixii lacag u soo dhacayna wuxuu ku shubayaa shandad waxaanu tegaya airportka isagoo degdegaya laakiin xaggan dhibaato cusub ayaa sugaysa waxaanu ogaanay in shandadu mari doonto jeel wuxuu aadayaa musqusha isagoo qarinaya lacagtii waxaanu dib ugu soo noqonayaa jeekinkii waxaana arkaynaa magaaladu ugu soo noqday Andrea way sugaysay isagoo indhihiisu ka muuqato farxad waxaanu guurin guri cusub soo Gilbert iibsaday wax yar ka hor laakiinse mar kale uma sheegayo Andrea runta isagoo ku andacoon inuu ganacsiga reerkiisa wado sidoo kale booliiska ayaa biloobay baaritaankooda ku saabsan dhaca baaraha Hoffman wuxuu doonayay inuu ka dambeeyo gangsterka Tommy dhinaca kale John wuxuu u sheegayaa taliyaha booliiska in Tommy la xidho waxaanu weydiistay fasax uu ku soo xidhayo Tommy laakiin mar labaad booliisku ma hayaan caddayn sax ah taasoo macnaheedu tahay John inuu sii wado basaaska uu Tommy ku waday oo uu kashifo dhanka kale Gilbert wuxuu u baahan yahay lacag badan markaa waa inuu sameeyo dhacweyn markaa wuxuu u soo gelayaa baarka Tommy si uu la kulmo waxaanu u sheegayaa in bangiga wadada ku soo jeedo ku dhici karo 3 daqiiqo oo kaliya markaa wuxuu ka dalbanaya Tommy inuu siiyo $10,000 oo deyn ah taasoo ballan qaaday Gilbert inuu ku siinayo 5 bilood gudahood Tommy waa aqbalaya wax yar kadib Gilbert wuxuu isku ekaysiinayaa shaqaale waxaanu gelayaa bangiga 3 daqiiqo kadib wuxuu ku soo noqonayaa albaabka dambe ee baarka isagoo sita lacagtii uu soo xaday Tommy uu yaabaya intaas kadib Gilbert wuxuu sii wadayaa inuu dhaco bangiyada kolba isagoo nooc ka dhigaya si aan loo aqoonsan kadib waxaan ogaanaa filimkan aad weli like saar markasta wuxuu dhacana
uu ka baxa magaalada wax ka dhacay si aan loo qaban. Gabitaankan xariifnimada leh waxa ugu baxay magac cusub oo la dhaho Bandit Flying. Ilaa hadda wuxuu dhacay 36 bangi. Iminka wuxuu noqday taajir, waxaanu iibsaday dhowr gaadhi oo nooca raaxada ah iyo saacado qaali ah. Isagoo intii soo hadhay lacagtiina uu qasnad ku xidhan jiray, wuxuuna noqday inuu taajiriinta ku biiro. Kadibna wuxuu bixinaya deynta Tommy. Tommy wuxuu soo bandhigaya qorshe cusub oo uu ku dhacayo dukaanka dahabka. John weli waxay ka go'an tahay inuu qabto Tommy, iyagoo meeshan kafeteriyada ku dhigi doona mashruuc ay ku soo qaban lahaayeen. Waxayna biloobeen inay la socdaan dhaqdhaqaaq kasta iyo kulan kasta uu Tommy sameeyo. John marka hore wuxuu sameynaya qorshe ay ku soo qabanayaan, isagoo sawiro ka soo qaadanaya dhammaan wixii la shaqayn jiray. Bacal waxay hayaan sawirada Gilbert, laakiin ma garanayaan cidda dhabta uu yahay. Markuu guriga yimaado, Andre ayaa si lama filaan ah ugu soo gelaya qolkiisa sariirta. Dusheedana waxaa taala lacag aad u fara badan oo dhinac kasta daadsan. Andre ayaa weydiinaysa xagee ka timi lacagtan. Gilbert wuxuu ugu dambeyn u sheegayaa runta inuu dhaco bangiyada. Andre oo naxsan ayaa u sheegaysa inuu caddeeyo inaanu qofna waxba u geysan intii uu bangiyada dhacay. Si uu caddeeyo, subaxdii dambe wuxuu ka haysanayaa bangiga, isla indhaheeda horteeda ayuu ku dhacayaa. Andre way la yaabaysaa xirfadiisa. Waqti yar kadib wuxuu Andre u keenayaa lacagtii uu soo xaday. Markii ay guriga ku soo noqdeen, Gilbert Andre wuxuu ballan qaadayaa inaanu shaqadan ku raagi doonin. Dhanka kale, John si dhow ayuu la socdaa baarka Tommy waxa ka socda. Gilbert wuxuu yimi si uu la kulmo Tommy, waxaana si wada jira bilowayaan qorsheynta dhac kale. Markaa Tommy wuxuu amray inuu raaco Bishop Gilbert. Inta lagu jiro dhicitaanka wax yar kadib, markuu Gilbert aado musqusha, waxaa soo gelay John, waxaana Tommy uga digay inuu dhawaan la soo saari doono qorshihiisa oo dhan. Markuu John arko Gilbert, uu sii shakinaya sababtoo ah wejigiisa waxaa ku yaala silicon. Kadib John wuxuu bilaabay inuu waco dukaamada dharka ee magaaladaasi si uu baadho. Habeenkaas wuxuu si lama filaan u helaya taleefan degdeg ah oo ka yimid saldhigga booliska. Waxayna qabteen nin baabuur wato oo sakhraasan. Ninkaas wuxuu noqday mid ka mid ah raggii Tommy shaqaynayay, kaasoo ahaa David. David wax walba oo ku saabsan Gilbert oo u sheegay booliska, waxaanu kaloo ugu daray Gilbert inuu ku socday aqoonsi been abuur ah oo ku qoran tahay Robert, iyo inuu yahay tuuga dhici jiray bangiyada. Weliba wuxuu ku sii daray David isku diyaarinaya dacweyn. John wuxuu soo gelay goobtii uu dhacay Gilbert, isagoo qaba inuu ugu dambeyn soo gabagabeeyey kiiskii. waxaanu wargelinayaa booliska magaalada isagoo u sheegaya in maanta magaalada ka dhici doona dacweyn. Wax yar kadib, askarta ayaa taagan banaanka bank kastoo magaalada ku yaala. Sidoo kale Gilbert iyo Bishop waxay isku ekaysiinayaan ragga kaamirada hagaajiya, waxayna biloobeen shaqada kaamirada hagaajinta iyagoon ka warqabin in booliska arrimahooda dhan ula socda. Gilbert wuxuu soo gelay dukaanka dahabka, waxaana islaanta ku amraya inay dhammaan baclan ka buuxiso dahabka. Bishop wuxuu taagan yahay albaabka ilaa uu si lama filaan u arko John oo soo socda, iyagoo argagaxsanaya carrayan, iyagoo si dirqiya uga baxsanaya indhaha booliska. Laakiin iyagoo degdegsan ayuu Bishop si lama filaan uga tegaya hubkiisii gudaha dukaanka. Booliska way ku daba jiraan weli, laakiin waa adagtay in laga dhex garto dadka sababtoo ah dhar normal ah ayay xidhan yihiin, wayna adagtay in la aqoonsado dugta dhabta. John wuxuu si lama filaan u jiidaya batanka lagu ogaado inuu dab ka kacay goobta. Dadkuna qof kasta dhinac ayuu u cararaya, laakiin ugu dambeyn wuu arkaya Gilbert iyo Bishop waana soo bursanaya, laakiin ugu dambeyn way ka caqli badanayaan waana ka baxsanayaan. Kadib Gilbert wuxuu wacay Andra, waxaana uu sheegaya in caawa wax walba soo xidhxidho, caawana waan baxina ayuu ku dhahaya. Bishop wuxuu ku laabanaya baarkii Tommy. Markuu Gilbert yimaado guriga, wuxuu arkaya Andra oo fool hayso, waxaanu Gilbert ula cararaya dhakhtarka, halkaasoo Gilbert lagu dhalayo wiil. Isla mar ahaanta booliska waxay weerarayaan guriga Gilbert, laakiin waxay u tegayaan guriga oo maran. Gilbert wuxuu u guuriyay meel kale isagoo kaashanaya Tommy. Sidoo kale booliska wuxuu baadhaya hubkii lagaga tegay dukaankii dahabka. Gilbert wuxuu ku mashquulsan korinta ilmihiisa weyn, waana ku faraxsan noloshooda. Andra mar kale ayuu uur u qaadaysaa Gilbert. Kadib maalmaha ka mid ah, waxaa si lama filaan u booqanaya Tommy. Gilbertna wuxuu weydiinayaa qorshaha uu leeyahay, laakiin Gilbert ayaa u sheegaya inuu gebi ahaanba waxaas iska dhaafay. Gilbert wuxuu hubinaya keydkiisa, waxaanu ogaanaya inay lacagtii ku dhowdahay inay dhammaato. Marka Andra uma ogola inuu mar kale wax soo xado. Subaxdii xigtayda Andra hurdo wuxuu sii qorayaa warqad macasalaamin ah. Markii Andra soo kacdo, waxay ogaanaysaa inuu maqan yahay. Isla markaasna waxaa soo dhacay telefoonka isagoo uu soo wacayo John, waxaanu weydiinaya inuu Gilbert joogo guriga, waxayna u sheegaysaa inaanu joogin. John markaa wuxuu la xiriiraya garoomada diyaaradaha, laakiin ilaa haanta wax cusub kama helin. Dhanka kale, Gilbert wuxuu ku jiraa qol hodheel isagoo isku diyaarinaya qorshihiisa. Sidoo kale wuxuu wacay Andra. Gilbert wuxuu u sheegayaa inay kula kulanto garoonka 5 galabnimo. Intaa ka bacdi, sidii hore ayuu isku ekaysiinaya, bangigana uu dhacaya, boorsadana wuxuu ka buuxsanaya lacag, isla markaana sidaas uu soo baxaya. Isla markuu sidaas soo baxana, waxa uu dharka ka bedelanaya qof kale. Booliiskuna ninka ayay qabteen, waxaana ka faa'iidaysanaya fursaddaas uu ku baxsaday. Isla markaas Gilbert wuxuu arkaya baabuur iib ah si degdeg ah inuu iibsanaya oo uu ka haysanaya. John wax yar kadib wuxuu imaanaya bangiga isagoo tusaya qof walba sawirkiisa. Gilbert mid ka mid ah booliiska ayaa u sheegaya inuu Gilbert baabuur ku soo baxay. Gilbertna wuxuu soo gaaraya garoonka diyaaradaha, wuxuuna si nadiif ah u soo dhamaystay baaritaanka. Laakiin hadda warka ah in la raadinayo ayaa soo gaaraya garoonka diyaaradaha. John isla markii wuxuu ka amray in la joojiyo flight-ka,
laakiin way ka caday. Hoffman ayaa soo jeedinaya ku sugan garoonka diyaaradaha ee uu ku degayso diyaaraddu. Gilbert markuu soo dego waxay Andrew ku sugaysay garoonka, laakiin isla markii booliska ayaa soo hareereynaya dhinac kasta. Gilbert ayaa lagu xidhay halkaas. Andrew aad buu uga xanaaqaysaa, waxayna uga digtay inuu mar dambe wax xalin, laakiin muu maqlin. Waxaana ogaatay xitaa inaysan aqoon magaciisa dhabta ah. Andrew wuu furayaa. Tommy wuxuu yimid inuu arko Gilbert isagoo dhoola cadeynaya, waxaana uu sheegay inuu isagu laftarkiisa ku markhaati furay. Ugu dambeyntii Gilbert waxaa lagu xukumayaa 20 sano oo xarig ah kadib markii uu xaday 59 bangi. Filimkan wuxuu dhamaanayaa adigoon weli saarin subscribe, videogana aan like dhihin. Fadlan subscribe saar, videogana like dheh. Wassalaamu calaykum.